ujeedada socdaalka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareegaas Axmed Jimcaale Geedi ee maanta uu ku tagay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa iskugu jirta dhiirigelinta ciidamada iyo korgelida xaaladaha ay ku sugan yihiin ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaankaasi oo ay dhawaan ay kala wareegeen maleeshiyada Al-Shabaab. taliyaha ciidanka xoogga dalka oo ay weheliyaan madaxda hoggaanada saadka iyo wardoonka ee ciidanka xoogga dalka waxa ay howlo kormeer ay ku tageen xerooyinka ciidamada xoogga dalka ay kaga sugan yihiin deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose iyagoona warbixino ku aadan sida u socdaan howlaha ku aadan difaaca dalka ay ka dhageysteen saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaankaasi. abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdullaahi Cali Caanood oo maalmahanba ku sugnaa deegaanka Bariire ayaa ka warbixiyay howlgallada lagu bacsanayo maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ka socda qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose. waxaa difaac uga jira ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dagaalo 4 ah ku galay halkan mid ka mid ah dib nagu gaaray saddexdii kalena ku guuleysanay wax kastoo soo gaaray baa hadda annaga goobta u harnay oo gacanta ku hayna waxay naga dhintayna waxay u dhinteen difaaca qaranka Soomaaliyeed iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed Allah u naxariisto intii dhaawacantayna saas u dhaawacantay ayagoo masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed difaacaya dhaawacmeen haddana inta kale waxay diyaar u yihiin inay howlgal kala sameeyaan oo degmooyinka kale oo gacanta cadawga ku haray ay ka xoreeyaan. General Axmed Jimcaale Geedi taliyaha ciidanka xoogga dalka oo la hadlay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in dawladda ay xoogga saari doonto xuquuqsiinta ciidamada iyo agoonta ay ka tageen. xafiisyada xaqsiinta hadda la sameynaya golaha wasiirada way soo martay baarlamaanka inuu ansixiyaa dhiman haddii la geynayo sharci jiri jiray waa qof kastoo hebel gaara in uu leeyahay mushaaradiisii oo qaadanayo agoonta sidoo kale inaan mushaarada laga jari karin naafada qofka ku naafooba hawshii qaranka in xuquuqdiisa oo buuxdo la siinayo waa la sharciyeeyey golaha wasiirada dawladda waa soo martay hadduu alla yidhaahdo in lagu camal falaa dhiman waxaan rajaynaynaa inaan fulinno dhallinyaradana ay shaqeeyaan odayaashii horey u soo shaqeeyey oo waayeeloobayna in xuquuqdoodii meel loo saaro marka ma raba inaan warka idinku badiyo meeshaan cadceedaa la fadhiyaa aad iyo aadaan idinkaga mahad celinayaa xalayto madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha markaan u sheegay waxay dhaheen nagu salaan ciidanka salaan naga gaarsii kal iyo laaba waana u imaanaynaa hadduu alla yiraahdo. taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgallada lagu sifeynayo maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. run ahaantii inaan inta iska fadhino macno badan ma samaynayso dhawaanna waxaan bilaabi doonaa howlahaas ilaahay idamkiisa aad iyo aad u mahadsantihiin waana idin soo salaamay abaanduulaha ciidankana aadan ugu mahad celinaynaa oo idin dhex seexda oo u dulqaata waxa u dulqaadanaysaan. waa kormeerkii ugu horeeyay ee taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta uu ku tagay deegaanka Bariire tan iyo markii maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed deegaankan ay ka saareen. Maxamed Xasan Cali idaacadda telefishinka qaranka Soomaaliyeed deegaanka Bariire gobolka Shabeellada Hoose.